maanta halkan waxaan u joognaa inaan dhagax dhigno dayactirka iyo faarbixinta iyo dib u qaabeynta warta weyn ee biyaha degmada Boondheere runtii isla markaasna waliba motor iyo bam loo sameey doono awood inuu biyaha kaga tuuro oo biyo mareenka oo ku xiro ilaa iyo warta tumburuq oo halkaas ku xiro kadibna aan halkaas badda ka sii gelino ay biyaha meeshaan ku hakan hadii Ilaahay yiraahdo qorshahaas weyn ayaan u diyaarinay sida la sheegay waa war oo biyaheeda ilaa 5 degmo ay ka yimaadaan marka biyaha meeshii ku sii jiraan roobkina uu sii khatar ka imaanayso waxaan rabnaa markii inaan awood u yeelano warta awood u yeelatayna biyihii laga sii saari karo isku soo gaarin hadii Ilaahay yiraahdo shaqo wanaagsan baa laga qaban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo oo tayo leh oo la isku xisaabtamayo oo la kormeerayo waxayna ka mid tahay mashaariicda waaweyn ee horumarineed gaar ahaan mashaariicda la xiriirta arrimaha soo celinta bilicda caasimadda ayay qayb ka tahay oo maamul gobolka Banaadir oo ah arrimaha hortibinta oo ka mid ah shaqadan Ilaahay idinkiis marka way bilaabanaysaa wayna dhagax dhigan tahay waxa si toos ah maalgelinayso dawladda hoose Xamar waxaan rajeynayaa markaan kormeer iyo joogto ee maamulka degmada shacabka degmada inay ilaashadaan warta iyo badqabkeeda hadii Ilaahay yiraahdo kaalinta kaga aadan horumarka caasimadan inaad qaadataan kaalinteeda kaga aadan amniga inaad qaadataan لأنه Boondheere waa degmooyinka qadiimiga ah oo asalka oo mar walba yani u taagan dib u dhiska wadankooda iyo horumarka wadanka shacabka Boondheere waxa waaye kaalinta koobaad ay weligood ugu jiri jireen cashuurtii inaad bixisaan waa la idinka rabaa doorashooyinka tooska ah 25 bishan xamar ka bilaabanaya gaar ahaan golayaasha deegaanka gobolka Banaadir inaad birig mataqaanaa kaalintiina ka qaadatiin waxaan rajeynayaa degmada Boondheere inaysan maanta jirin cid hore isku diiwaan geliso aan kaarka haysan inaysan jirin rajeeya oo la dhihi doono kulligeen inaad qaadateen haday jirtana waxa waaye haddaan idin si xasuusinayaa kaarka la qaato cod bixinta doorashaha loo diyaar garoobo sidaan hore u sheegno waxa waaye amnigeena iyo horumarinta caasimadana gacan baan ku qabsanaynaa gacanna doorashooyinkan uu shaqeynaa waa isku dooranaynaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa ما سنتين وعربنا جودهان حمر قارهان دقمدا هذا أمانة جوجنو مردو إنا يلاتو معمول دقة دقمدا يو كونسل كيسي دقمدا أو شعب كرر Boondheere أي دورتين أيارنا إلى الكان كصبحان أو هدي عرضها ماشي تورن هذا أركتان أتقول حساب تان دوق الدقمة هذا أنا مرة مقدارمين هذي عرضها أسبوع ماشي سي تعلو هنا دي كتان الربا مركان إن شاء الله تعالى شغوين كماشي أنا لقى قبضهم وحرمنا أنا كمان نغطو ومشروع على التركيز اللي وصل بيري عرضها سائد كهلكا كم مغطيه كل إلا النظيفية أو الغرحية دي اللي هذا لقبضنا مرة بدي مرسد حاد بلنت إنه حواي إن نكوض شغينه ورمرت عاصمة soo celinta bilicda caasimadda iyo inaan si dhow ah adula shaqeysaan heedaha nabadgelyada waxaan oo dhan oo horumar ah oo socdo doorashooyinka socdo kulli waxa asal iyo asaas u ah nabadda caasimadda ka jirto nabaddaasna waxa iskale shacabka ayaa iskale nabaddaas inay ilaashataan wadada aad ku ilaashataan waxa waaye inaad ciidamada nabadgelyada la shaqeysaan waxa dareysataan si degdeg ah u gaarsiisaan ciidamada nabadgelyada aad u sheegtaan gacmo wada jiray wax ku gooyaan ballanteenu waa shaqo waana maasantii salaamu calaykum